qoraa Cismaan Saalax Faarax oo xeel dheere qoraalka buugaagta cilmiga noocyadiisa kala duwan ayaa ku soo bandhigay magaalada Burco 6 buug oo kala buugga koobaad oo qoraagu ka qoray doorashadii madaxtooyada ee Soomaaliland ka dhacday sanadkii 2003 buuggaas oo la yiraahdo nin sabra sadkii hela buugga labaad oo magaciisu yahay saabaan nin ka baxa sareediyo nin u nool kaasoo uu kaga hadlay dhibaatadii ay soo martay magaalada Hargeysa iyo horumarka dhinacyada badan ee xilligan ka jira xarunta Soomaaliland ee Hargeysa buugga saddexaad ayuu kaga hadlay gobonimada iyo qiimaha ay u leedahay aadanaha buugga afraad oo magaciisu yahay hadimo ayaa ka hadlaya in laga feejignaado dhibaatada buugga shanaad ayuu kaga hadlay dagaalkii bariga dhexe ee u dhaxeeyay Masar iyo Suuriya oo isku dhinaca iyo dhinaca kale xukuumadii Yuhuudda ee Israa'iil dagaalkaas oo dhacay 6 bishii Oktoobar sanadii 1973 iyo buugga lixaad oo qoraa Cismaan Saalax kaga hadlay dagaalkii gacanka Carabta ee uu bilaabay halyeeygii qarnigii 20aad ee Saddam Hussein al-Dikriti waxaan doonayaa in aan maanta bulshada u soo bandhigo 6 buug oo aan doonayo in aan dhigo maktabada weyn ka furi doono magaalada Hargeysa waqtiga soo socda buugga ugu horeeya oo aan ka qoray doorashadii ka dhacday Soomaaliland 2003 buugga waxa la yiraahdaa nin sabra sadkii hela 8 cod oo mucaaradku aqbalay ayaa horseed waxay u noqotay nin sabra sadkii hela waayeel sheeko laga reeb tusaalooyin laga wari iyo warar dhaxalgala buugga labaad oo aan sagan ka qoray caasimada Soomaaliland ee Hargeysa iyo dhibaatadii ay soo martay ayaa wuxuu tilmaamay magaciisu sabaa nin ka baxay sareediyo nin u nool Hargeysa iyo shalay Hargeysa iyo maanta muuqaalka saree buugga waxa uu nusay oo ka muuqda MiG 17 oo duqeyn isla taagtay magaaladii ugu horeysay ee laga taago calan Soomaaliyeed dhanka kale waxa ka muuqda isaguna magaalada heemarka quruxda iyo bilicda ka muuqda magaalada Hargeysa maanta oo ay indhuhu ku doogsanayaan adduunyadu uu harka labadiisa gelin buugga saddexaad oo isagana aan ka qoray gobonimo aana ku lamaaneeyay dhacdooyin mataana waa sooyaal taariikheed oo ka waramaya laba ummadood oo halgan adag u soo maray inay iska qaadaan heeriyo gumaysi cadaadis iyo caburin aan loo midaandeyn buuggaas waxa uu sheegayaa in ay dhacdaasi dhacday mataanahay Liibiya 1912 ilaa 1930 Soomaaliland waa 1980 ilaa 1990 gobonimadu waa lagu taxangeedinoo waa gumara aad ugu hantiyo guusha ugu weyn buugga afraad waa hadimo ay mustaqana kaga waramayno ciwaanka uu xambaarsan yahay ninka hadima taliyo adiga oo halisa buugga shanaad oo aan kaga waramayo dhacdooyin caalamka ka soo dhacay uu ka mid yahay dagaalkii qarnigii 20aad ee bariga dhexe waa Masar Suuriya iyo Israa'iil dhexmaray sanadkii 1973 burburintii khadkii Barleef wacdarihii General Shadali awadaygii Saadaad ibaroortii iyo qayladhaantii Goldamaye buugga lixaad aan ku soo gabagabeynayno waxa weeye dagaalkii gacanka ee 1991 ka dhacay dalka Khaliijka taasoo halhays uu Saddam ku bilaabay markii rafaalaha dagaalku socday uu ku lahaa dagaalkan wuxuu noqon doonaa hooyadii dagaalada qoraa Cismaan Saalax Faarax oo hore u qoray buugaag dhaxalgala ayaa sheegay inuu buugaagtan dhigi doono maktabada qaranka Soomaaliland oo dhawaan la filayo in laga furo magaalada Hargeysa haddii rabiidmo Ali Daahir Maxamed Boos TV caalamiga Universal Bro